intaa markaan ka gudbo reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa reer Soomaaliland waa qoys ma laba qoys waa qoys odaygeedina waxa weeye Axmed insha Allah wuxuu inoo noqon doonaa inoo fariiso doona halkii Nelson Mandela marjaca ummadan buu noqon doonaa cimriga Allah u dheereeyay intuu nool yahay waxa meesha yaalon waxa weeyaan Axmed dabadii qoyska cidii hogaamin lahayd 13 bixii ka horeeya qoysku de saddexdeena wiil bay ku kala safayn laakiin 14 qoyskii baynu nahay 14 marka la gaadho qoyskii baynu nahay taas muxuu ahaa sidaa loo qaato dhalinyaradana waxaan oran lahaa arinta waxa socdaa taas ku fahmaysaana waa ciyaar waa kubad baa la ciyaaraya laba tiin oo walaala wada ciyaaraya taas fahmaysaana de markay ciyaartu dhamaataana waa la ishambaliyeen ninka badiya ka kalena de doorka dambe sidoo koobka u qaadan lahaa buu de dadaalkeeda iyo diyaar garowgeeda oo gala kalmadeeda waxaan ku soo koobayaa madaxweynuhu shakiga ma jiro inuu ummadan odaygeedii iyo aabaheedii uu dhex u yahay qiimo badan ku leeyahay qof ahaan way sharaf inaan ka mid ahaa ragii dhisay lana soo shaqeeyay waa arin muxuu ahaa CV-ga iyo taariikhdeeda ka mid noqon doonta saaxiibkay walaalkay Maxamuud Xaashina madaxweynuhu si walba waa u dhax si walba waa u dhex kalsoonidaasaana la wada qaba saddexda nin aanu saaxiibka nahay ilma adeerkana tartamayana nin aan ka filayo waa liimir qabtoona waxa muxuu ahaa wax runtii aynaanu fadheen u la yimaada waa liimir saddexda aqoon baanu leeyahay midaynu ka filaynaana ma jiro inta kaliya jirtay tay booliska iyo ciidamada amniga kala shaqeynaa waxa weeyaan dhalinyaradeenii marka hore waynu u taaglaynay boolisku la tacaalayay ee suuqdooda istaagayay moobilada dadka ka boobayay ayuu baa sharciyada taagan taasna waxa weeyeen booliska iyo ciidamada amniga lagala shaqeeyo muxuu ahaa dadaal maalmahan xil gaara la isa saaro ragaanu saaxiibkana tartamay wax baan leeyahay waxa wadaan waa sabab kursiga ninkii Ilaahay u qoray baa ku fadhiisanaya ee codsiga ku codsanaysaan ina kursiga tagtaan wanaajiye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.